maajiyo رئيس وزراء هذا الصومالية حسن خير دولتنا هذا جرتا يربى الله شيء كيسات حكي وبورنا بني هذا سعودي جوني ودادا والله وحده دولتنا مركز تبد وشرفوني سعودي وانا شرفا صومالي كل كلنا يلاحظوا ولا احترام بودي وبوقشدي مدحوينه markay dhacday intii ka dambeysay wala ixtiraam oo laga dambeeyay odayda oo araba bameel casuumada inta laga ka soo noqonay ka soo qaaday marka lacagtu lagu kordhiyay lacagta naga yareey baan idhi marka ya salaam antum akaltum lahma al-mandi hilib cusub baad cunteen lacagta badan maxay tahay konto riyaal way iska bixiyay meesha 10 riyaal loo raacay konton yiri marka uu noo soo sheekeeyay wuxuu yiri Soomaalidu aad baan ugu faraxay ninkaas waa Sacuudi waa oday istiqlaaliye madax banaanida khaliiska wixii la rabeen inay iska diideen waxay wuxuu yiri ma aragtay dad bay noqdeen buuli anagu marka maadaama aan baqayno la kala garanaynin dadka dabagalka ah ka wadaadka ah iyo ka dabagalka aan la kala garanay afka yaan ka haysanay nacam u balayn waxa la nagu xiriin baan lahayn ila waa baqayna la faayagaan wacabsanay isaga naftiisa anag iyo ka baqaynay Soomaalidu marka ninkii amaanay wuxuu ku amaanay madax banaani waan in odaya wuxuu wata gaari quruxsan dawladdan marka hadda joogta anigu malihi ma kafayso hadii ay waa bani aadan gaf samayso hala toosiyo mucaaradku ha noqdo mucaarad wax toosinaya laakiin in la yiraahdo dawladdiiba waan burburinaynaa oo loo shiro oo laga hor yimaado oo la yiraahdo dawladdu shaqeyn mayso oo ragga qaarkii aan dhagayga ku dhagayso kooxda filla Soomaali ku jirta war kooxda filla Soomaali ku qaad leedahay maxaad u jeedaa waxa uu liidaysaa ma tiraahid madaxda filla Soomaali degan hatta wax kala dad weydo dawladda filla Soomaali degan ma tiraahid kooxda buuli kooxdan de filla Soomaali degan hada ku raaco ma iyaga iska yimidista waxa doolatay bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed dooratay waxbay qabanayaan dibadii waxbay ka yihiin dawladda waa dawlad weeye caqabaad baa ku meersan dawladdan caqabaadkaasi waa qaybsamaya cadow dibadda ah dad adeegsanayo ba hortaagan iyo kuwa kale oo inta man yihiin iyaguna wax raadinayo kulligoodna kulka la isku geeyo waa manfac raadis nin Soomaali wuxuu raadinayaa ma jiro nin shacabkiisa wuxuu raadinayaa ma jiro nin tala Soomaali ka shaqeynaya ma jiro dawladdaas waxay u baahan tahay in la barbar joogsado culimada Soomaaliyeed baan u soo jeedinayaa hadalka markaan leeyahay tana aanu kama wada khaasa wax tan oo khaasan ku qabaana ma jiro hadalka markaan leeyahay farmaajo iyo khayre bari haday iska tagaan inagu baa soconayno isbaabiinayna laakiin maadaama nidaam wuxuu egi dhashay oo raja yimid oo iftiin yimid oo Soomaali wax loo rajaynayo oo hadda wax kale iska dhaaf gaaladii dibadda beeshii caalamkii ay ku aamintay lacag inay u dhiibto waa dawladdii ugu horreysay lacag loo dhiibo kolkii hore iyaga qaybsan jiray iyaga maamuli jiray laakiin hadda dawladda waxa la siinayaa 8 milyan maqlisiin ba gacanteeda laga gelinayaa waxa la gelinayaa akoonkeega hadi amaana weey waxba lagu tuhmay shafaafiya lagu arkay amaana wuxuun baa lagu arkay inagu marka hadayna shacabkii ka kooban tijaar ka kooban ismo ka kooban culimo ka kooban dadweyne ka kooban haween iyo rag iyo caruur iyo mutacallimiin iyo arday maxay nina gudboon mayna mucaaradana inoo gudboon إذا كان يود محاوى مصيصان إنا بربر جوكسنا مين هين دولتنا بربر جوكسنا دولة لا أيده ودولة قبل الله دورنا وأيد سينا لا أيده وأنت وقتك لو دايو وعقبات كبدن يهرجوكسجا يعيبينتا يعنانتا يعيدا iyo ma aragtay isbaarooyinka loo dhiganayo laga daayo meen arintu saasayn dawladda waa insaas loo galaa dawladda hadda yara jirta dibadda dawlad bay ka tahay gudahana iyada dawlad ka ah iyada la ixtiraafsan yahay iyada Soomaali dooratay qola kasta waxay ku leedahay wasaara waxay ku leedahay xildhibaano waxay ku leedahay wasiiro maarid ku xigeen ah waxay ku leedahay aqalka sare waxay ku leedahay dad badan baa qola kasta ugu jirta intaas ka fishaafiya waxa wixii ka badan miyaa waa meel ka dhac waa in dadka dibadda ka imanaya Soomaali waa dad nool Soomaali waa toostay ninka ka hor yimaada wuxuu noqonayaa qabrigii Abu Riqal nin loo dhan jiray baa jiro Araba oo Arab Abraahim tuu hogaamiyay xarabku hogaamiyay waa laba riwaayado riwaaya Saalih
markaas taa'ifagteedu ku aasan yahay nin alla ninkii carab ee agmaraa dhagax buu qaadaa iga guddoon buu yidhaa waa shaydaankii carab ku soo hoggaamiyey qarannimadeeda ilaa qarannimada carabeed waxay beydka ninkii cadowgu soo anugu ka baqayaa rag badan qubuurtooda in la rajmin dooni